السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan daafureynaa qaybteeni labaad course-kii e-commerce-ga. E-commerce marka la dhaho yani aad online commerce-ga ama ganacsigan online-ka aad u balaaran yahay. Waxaan focus gareyn doonaa anaga yani inaan ku barno sida China ina alaab ka keentid adoo xafiiskaaga ama gurigaaga joogo haddii arday aad tahay in alaabo yar yar oo qiimahooda ay badneen tusaale $50-60 inaad ku bilowdid ganacsi Soomaaliya aad keentid halka ganacsi yar ay ka sameeysid. Marka course-keena waxaan ku bari doonaa sida Alibaba loo isticmaalo, suppliers-ka sida loola hadlo, yani sida loola deal gareeyo discounts-ka, product-yada kala duwan sida loo baaro. waxaa jiro ready to ship waxa la dhaho customized products alaaba diyaarsan tusaale hadda skill hub loo funaansan camal oo product in lagu soo sameeyo daartid sida u soo sameeysan kartid sidoo kale waxaan ku baraynaa sida website oo e-commerce loo dhiso sida domain-kii sida loo iibsado hosting sida loo diyaariyo template-yadii waxba sida loo isticmaalo ugu dambeynna waxaan ku bari doonaa yani alaabta aad keentay sida online loogu iibiyo adoo isticmaalaya social media marketing-kii Google Ads-kii haddii barnaamijkaas aad jeceshahay nagu soo biir course-kan. Wassalaamu calaykum.